gabadhi waxa ay leedahay waxaan soo toosay aniga oo qabriga ku jiro oo lay weydiinayo su'aalihii oo lay leeyahay rabbigaaga yaa waaye nebigaaga yaa waaye waxay leedahay wax aan ku jawaabo ayaan kasi waayay isla markaas su'aalaha lay weydiinayo walaalahayga qaaliga ah waxaa rabaa qistaan inaa ila daawataan oo mucjisada badan leh insha allah waana ka heli doontiin haddaan ugu cusubtaa subscribe noo saar haddaa hore noola joogi jirtayna like asxaabtaada la sheer garee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xiran janalkayga waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan iyo waqti walba idintaa wanaagsan meel walba adduunka joogtaan haddaan ugu cusubtaa subscribe-ka noo saar gambaleelkana furo muuqaalkana like saar asxaabtaada la sheer garee si ayagana dad badan ee uga cibro qaataan gabadhan dhibaatada ku dhacday janalkan laga socotaana waa janalkeena Muneza waana walaashiina Muna ah walaalahayga qaaliga ah qisadan waxay ku dhacday gabar walaashana ayay ku dhacday gabadhan waxay leedahay hooyada iyo aabahay waxa ay ku noolaayeen markoodii hore wadanka waxayna ahaayeen dad ahludiin ah oo diinka yaqaano aabahay wuxuu ahaayay tiri macallin dugsi quraan oo ahaa hooyadeena waxay ahayd tiri ardayda markaas aabahay uu quraanka bari jiray markaas yacni aabahay ma ahaynay tiri qof weyn yacni macallimiinta kale ah dad quraanka mar hore soo bartay oo kadibna dadka sii baraaya ayagoo yar markay soo barteen iyo dad quraanka da ku soo bartay kaliyan waxay tiri abaayo aniga quraanka aabahayga yaraan ayuu ku soo bartay markaasna wuxuu guursaday hooyaday oo ahayd qof ayadana dhigan jirtay dugsiga quraanka markaas oo aabahay dhigi jiray ayay leedahay waa isguursadeen wadankii isku guursadeen tiri markay isguursadeen kadib waxaan ahaynay tiri laba gabdhood aniga iyo walaashay waa iga weyntay tiri anigana waxaan ahaayay tiri da'da ugu yareed aniga iyo walaashay dhowr sano noo dhaxaysay tiri oo aan kala weyneyn hooyada dhalmadeed yacni way soo kala daahday labadeenaasana adduunka u joognay waxaa dhacday in wadankii hooyada iyo aabahay ay ku noolaa waayaan ee adkaato noloshiisa kadibna aan usoo baxnay ay tiri wadamadan Yurub aan soo aadnay wadamada Yurub markii aan soo aadnay tiri aabahay sidiisii ayuu usii waday shaqadii markaas ee diinka ahayd oo dadka baraayay markii aan wadanka tagnay waxay leedahay sharci ayaan ka qaadanay dad deegaanaa noqonay hooyaday iyo aabahay iyo aniga iyo walaashay aabahay wuxuu ahaan jiray tiri qof markaas masaajidada ku yaala wadanka markaas aan joogno ilmaha loogu keeni jiray dadka wadankaas yacni qaxooti ahaanta kusoo galay oo wadanka degan caruurtooda ayuu ugu dhigi jiray madrasada quraanka fiqiga tawxiidka tarbiyada ayuu ugu dhigi jiray tiri hooyadeena guri joogtay aheeday dhahday anigana waxaan dhigi jiray tiri iskool walaasheena sidoo kaleento waxaan noqonay dhahday abaayo dad aad iyo aad u waaweynaa noqonay tiri markaan oo qaangaar kusoo dhaway tiri walaashay waaba ay qaangaartay anigana oo kusoo daba xigaa waxaa dhacday dhahday maalin maalmaha ka mid ah aabahay in uu geeriyooday oo tii rabbi u timid oo sidaasi ku dhintay aabahay markii uu dhintay kadib waxay dhahday abaayo mas-uuliyadeeni waxaa la wareegtay hooyaday macaan ayaa la wareegtay ayadaa hooyo iyo aaba intaba noo aheeday dhahday ayadaa adduunka wax walba aan ka haysanay ayadana sidoo kale anaga kaliya ayay adduunka naga haysatay hooyaday waxay aheeday tiri qof diinkeeda mar walba ku dhagan anagana waxaan ahaynay tiri dad xijaaban oo asturan mar walba haddii aan iskuulka aadeyno haddii yacni meelo oo muxuu ahaaye caruurta loo wadaa jirtaa xaflada iyo waxaas mar walba astaanta islaamka ay ka muuqato amaba diinta ay ka muuqataa ahaa jirnay tiri abaayo waxay leedahay hooyaday waxay samayn jirtay oo bannaanka ma aadi jirin laakiinse guriga ayaa waxay ku bari jirtay tiri si online ahaan ardaydii markaas aabahay uu ka geeriyooday ee markaas oo diinka u dhigi jiray iyo quraanka lacaga fiicanna way kasoo galaysa maadaama wadanka markaas aan joogna uusan ahayn wadan markaas muslina oo muxuu ahaaye madrasa ama iskoolaad ay leeyihiin oo lagu wada baran karo hooyadeena jaanis ay u ahayd ayadana waxbarashadeedii ay sii waday ee caruurta markaas ay baraysay oo online ahaan ayay ilmaha ku bari jirtay waxaa dhacday leedahay in iskoolkii dugsigii dhexe aan dhameeyay kadibna aan dugsigii sare waxaan rabaa dugsigii sare inaan dhameeyay oo kadibna aan u gudbay jaamacadda ayay leedahay abaayo jaamacadda markaan u gudbay kadib waxaan bartay leedahay
arday aad iyo aad u badan. ardayda aan barta ayaa waxaa ka mid aheed ee dhahday arday oo carab ah. يعني ardayda barnaa waxay leedahay waxay ahaayeen dhalinyaro oo carab ah. carabtana saa wada ognahay marka ay yimaadaan Yurub ama wadamadooda qaarba ma xijaabtaan oo xijaab la'aan ayay socdaan. Yurub marka ay imaadaan caruurtooda iska dhaafay xitaa dadkooda waaweynka ah xijaabka ma qaataan badankooda. waxay tiri dadka markaas aniga saaxiibta aan la ahaa gabdhaha markaas iyo dhalinyarada, yani dhalinyaro waaba iska nin oo asaga een xijaab loogama baahno. waxay tiri gabdhaha markaas aan saaxiibaha la ahaa ayagana sidoo kale dad islaami ahaayeen oo muslimay, laakiinse waxay xiran jireen ay tiri shoortiyada xilliyada kuleelaha madaxa uu u furnaan jiray, cambuure yacni oo garbafiine ah, waxyaabahaas ayay ku bixi jireen. maalmaha kuleelka oo jira waxay tiri waxay aadi jireen ee dhahday oo annaga dhan xitaa marmarka qaar joogta yacni wareegto oo naloo wada jiray fasax ama ardayda inta lasoo aruuriyo oo la dhahayo 15 maalmood meel hiblaayaa lagu maqnaanaa, oo mararka qaar yacni xilliyada oo kuleelaha ay jirto nala geyn jiray meelaha barkadaha ama meelaha xeebaha nala geyn jiray, oo sida dadka cadaanka oo kale ay kadibna u labisanayaan waxyaabaha hoosta laga gashanayo ayay ku joogaan banaanka ayay ku socdaanay leedahay. kadib waxaa dhacday in aan la yaabo oo aad iyo aad oo la yaabo dadkan fasahaadka ka muuqdo. kadib يعني tartiib ay igu soo dhawaadeen ay tir gabdhii oo waxay leeyihiin adiga maxaa ku xirxiray adoo gabar yar oo hadda 18 sano la jiro maxaa sida habriyo kale ugu labisanaysaa maryahan dheerka ah. waxay tiri aniga waxaan xiray jirgoonooyinkan yaryarka oo fashionka oo gabdhaha yariska 18 jirada ay gashtaan, cabaayadahan oo haafka oo muxuu ahaaye gasho jiray tiri oo yani wax ma buurniyay tiri wax i weyneenay ma wadanin, laakiin dhar yar oo iska dhuudhuuban oo qurux badan oo diinta islaamkan ay waafaqsan tahay ayaan wada jiray tiri, madaxeygana wuu i asturnaa jiray. يعني waxaa igu dhacday tiri mar walba in su'aalihii ay gabdhihii igu soo celceliyaan ardayda qaar oo waliba qaasatan kuwa carabta ah xoogaa takooris oo in ay takoorayaan oo kale markii la sheekeysanayo sheekadan laguma talagelin ordoo iska bax kuma quseesi inay dhahaan waxaa dareemi jiray leedahay abaayo cariiri aniga dhan takooris يعني أدري مجري تير نفس الديد وحدي جري محاكا قلدن وقادم واي تير مركي دنبو وقدنبين مركا قريو كلابته هو إذا أي أرنتو أشياء وحان هاي هايو محا دعي أنا يعني ما دام مسلم وضن هي تير عربت محا أبني إني حجابك تورتان وأنا جن حجابك أقادنينا هو إذا دحي تير قف والبي يعني سيدي إلهي سبحانه وتعالى وهنونيو هنون كيسنا أسيو qofka aa arkaysid ee wadan gaal asagoo jooga xijaabkiisa wato waa qof iimaankiisa adag yahay oo qawi yahay oo dhameystiran oo islaamka saxda ah la sheegayo waaye oo diintiisa iyo aayaadkiisana aan ku gadanaynin taman qaliilan ay tiri wax lacag yar ama adduunyada dhalaalkeeda aan ku gadanaynin waaye qofkaas ayaa xijaabka ku qaato wadamada gaalada ah. qofka aa arkaysid asagoo wadan muslina ama muslim ka soo jeeday markii uu yimaado wadan gaal ah xijaabkiisa tuuro diintiisa inkaro kaas waa qof daciif ah waa qof munaafiq ah ilaahayna hanaga koriyo saaxiib xunxuneeyo kugu noqonin ee faraha ka qaad. hooyadii hadalkeeda waa qaatay tiri waxaa isku dayay dadkii inaa jaro oo ah iskaga haro, laakiinse waxaan dareemay tiri inaa cid la ahay keligii ayaana xijaabka watay tiri meesha markaas aa wada joognay. aadkii aad ay ugu adkaatay awalna waxaa la dhahay biyo kaa qaada waa ay ku qaadaan biyo kaa badan waa ay ku qaadaan saaxiibkaadana sidiisaba mana ku caddeeyo mana ku madoobeeye sida uu yuhu kaa dhigaa. hadduu saaxiib fiican yahay waad fiicnaanaysaa, haddii uu yahayna saaxiib xun adigana sidoo kale waxaa noqonaysaa saaxiib xun oo isaga oo kale. gabadhii arrintii way qaadan weysay gurigii kusoo noqotay waxay bilowday inay labiskeedii ay badasho oo ay ku labisato si tartiib ah shaatiyada hadda dadka qaar ay qaataan oo xoogaa dheer qaarka dambe يعني qaarka dambe un la daboolayo cajaraha qaarka dambe daboolayo xoogaa yar hore usoo dheer يعني qaybta dambe xoogaa yar oo fanax oo kaleeyahay oo dheer yahay. waxay bilowday inay qaadato dharka noocaas oo kale shaatiyada noocaas oo kale iyo surwaal inay ku baxdo gabadhii. hooyadeed markay aragto hooyo waxay tiri maxaa dhacayna subxaan allah maxaa ku bedelay maxaad la bedeshay labiskaagii. hooyadii waxay dhahday hooyo aniga xur ayaa ahay qof weynaa ahay
wax xun iyo wax fiicanna waa kala kasaa. waxaan bilaabay tiri inaan hooyadii ku afceliyo. gabadhi walaashay ahayaa igu qaylisay, naaya aaba haddii uu noolaa lahaa ma ogaan lahayn miyaa inuu kugu xanaaqi lahaa uuna kaa caroon lahaa waxa aad samaynaysid iyo dhaqamada xuxunka ee hadda aa la soo bixaysid. waxay tiri aniga xura ahay, wadan xorna waa joogaa, haddii aa idinkula joogayo waa idinkula joogaa, haddii aadan raalli ka ahayna waa idinkaga tagaa gurigiina. guri oo qaasa maadaama aa qof qaangaar ah, guri qaasa ayaa laysiinaya, gaaraan u degaya. hooyadii waxay dhahday markii ay warkaas ay maqashay wadnihii ayaaba qararacmay gabadhaada oo ereygan afkeeda kasoo baxayo maxaa waaye. markaasaa waxay ku tiri hooyo ilaaha kusoo hanuuniyay tiri, waana soo hanuuni doontahay, orodoo iska bixi tiri. ilaah subxaana watacaala ayaa mar walba kuu baryaa oo muxuu ahaaye ilaahay aan kaaga baryaa in uu kusoo hanuuniyo. gabadhii waxay tiri sidii aan ku waday yacni dharkaasaan ku baxaayay tiri, aniga aan iskoolka ku aaday. markii aan aaday asxaabteedu waxay bilaabaan xoogaa inay isoo dhaweeyaan, waa qurux badan tahay saa usoo xiritay. markii dambe waxaan bilaabay tiri xijaabkii awal yacni qoorta saas waa u wareejina oo qoorteeda waa ay daboolnaa jirtay, waxaa usoo wareejiyay tiri asagana sida masar oo kale inaa markaan aa u saarto xijaabkii. hooyaday waxay dhahday habeen iyo maalin salliga maka kor kici jirin, habeen iyo maalin ilaahay gacanta kor ugu taagaysa. habeenada qaar marka aa musqusha usoo kacaya ama suuliga waxaa arki jiri tiri hooyaday oo ilaahay baryayso oo ducaysanayso, laakiinse aniga ma ogey tiri waxay ku ducaysanayso hooyaday. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid in markaas asxaabteeni mid ka mid ah dhalasho loo sameynaayo. dhalashadaas la sameynayona lagu qaban doono meel kalaab ah lagu qaban doono, kalaabkaasna aan wada aari doono, habeenkaasna si qurux badan aan usoo wada labisan doono. anigana layga codsaday in aana isu soo dadaboolin oo aan yacni sida gabdhaha kaleento aan usoo labisto oo aan issoo qurxiyo, madaxa soo furto, dhar gaagaaban aan soo qaato. taasaan anigana laysoo bandhigay maadaama yacni dadka dhanba sidaasay usoo labisanayaan, qof dadaboolan ma soo galaayo, xafladda mana ka qayb qaadanayo ayaa leegu dhahay tiri. qofta markaas xafladda loo dhigaayana waxay ahayd saaxiibta markaas aniga iigu dhaweyd ee aadka u jeclaayay tiri. waxaa dhacday habeenkii in aan go-aan ku gaaro in aan yacni maalinkaas aan sidaas u labisan doono ee xafladda dhici doonto. waxaan bilaabay tiri inaan dukaamada aado oo aan dhar soo gato. waxaan soo gatay tiri dhar aad iyo aad qaali u ah, dharka ee gaalada amaba dadka caddaanka ee xafladaha ku aadayaan oo yacni oo qaaliga ah aan soo gatay dhahday. kaba dhaadheer aan soo gatay dhahday. waxaan aaday tiri maalinkaas koofeeraa aaday dhahday, timaha waa laysoo hagaajiyey oo waa laysoo qurxiyey, xitaa kalaraa marsaday tiri. aniga dhan waa isbedelay tiri oo qoftii maba ihiyee dhahday. markii ay saas dhacday kadib habeenkii waxay dhahday waxaa niyadeeda gashtay beriti in aan noqon doono gabadha ugu quruxda badan ee xafladda kasoo qaybgali doonto maadaama ay dadka igu barnaayeen xijaab. gabadhii waxay dhaha sidii ku seexda. hooyadeen waxay tiri sidii u fadhisaay tiri habeen iyo maalin ee salliga u kor fadhisaa, gacmeeda kor u taagan yihiin, kitaabkeeda haysataa ee dhahday. waxaan bilaabay tiri horta aniga inaan qur-aankii ka gaabay aana aqrinin oo seegseeg aan noqdo oo wax walba aana ku toosin oo adduunyadaas iyo dadkaas sida ay u nool yihiin aan u noolaada keliya aan bilaabay dhahday. habeenkii markii aan seexday ee dhahday waa hurday. markii aan hurday waxaan soo toosay, waxaan arkay tiri oon soo toosay anigii oo hooyaday iyo walaashay iyo ooynayaan oo anigana lay dhaqaayo, lay karfaneehaayo, oo markii lay karfaneeyey kadibna lay qaaday, lay geeyey meesha dadka lagu doogo amaba makhbarada ama muxuu ahaay meesha dadka lagu doogo qabriga lay geeyey, lay geliyey. markii lay geliyey ee carada laygu shubay kadibna ee nafti igu soo noqotay oo aan leeyahay hooyo ha iga tegina. isla markiiba shanqarta dadka markii ay saas usii dhuntay dhahday waxaa iga soo horbaxay dhahday labadii malag ee dadka qabriga ku su-aalayay su-aalaha lay weydiinayaa waxay ahaayeenay tiri ilaahaygaaga yaa waaye, nebigaaga yaa waaye, diintaadana maxay tahay. waxay dhahday waa cabsaday oo waa argagaxay tiri, waa sheegi waayey tiri oo nebigayga magaciisaan sheegi waayey tiri. markii lay dhahay ilaahaygaaga yaa waaye aniga dhan waa cabsaday tiri, waa shoogay tiri. markii aa shooga kadibna waxaan arkay dhahday in meeshii mugdi laygaga dhigay oo wax aan ku cabsanayo muxuu ahaaye lay tusaayo oo nolosha dhan laygu cabsisiinayo oo aan qeylinayo. waxaan kusoo kacay tiri oon kusoo booday anigii oo sariirteeda jiifa oo qeylinayo. hooyaday ii timid, hooyo macaan maxaa kugu dhacay,
maxaa aragtay maxaa kaanixi ay leeda mayaan dhaha hooyo waa seexday tiri hurdadeedaa sii watay subaxaasna waxay aheyday tiri subaxii markaas aan ballanta lahayn asxaabteyda ee xafladda aan aadi lahaa waxaa dhacday tiri in aan labiskeygii hore aan soo qaato ee dheera cabaayadaydii tarxadeydii sida diinta ay ka muuqatay inaan usoo labisto salaadeydii dugto aan muxuu ahaay qur-aankeyga kusoo hanuuno qof hanuunsan ilaaha iga dhigo hooyaday aad iyo aaday ugu farxday waxaynay tiri hooye mar horeba waa ogaa inaa iisoo laabanaysid inaa ii noqon doontid baarideydii aniga aan dhalay ee mar walba baari ii ahaan jirta ilaahayna wadadan uu kaa soo leexin doono uu kusoo hanuunin doonaa ilaah subxaana watacaala aan kaaga baryi jiray tiri aan u soomi jiray aan u salaadi jiray aan ilaahay subxaana watacaala u baryi jiray tiri alxamdulilah ilaahna maanta wuu iga aqbalay ducadeedii waatan aad iisoo laabatay gacanteeda iigu soo laabatay marka abaayo waxay leedahay qisadan oo annaga aan ka faa'iideynaa waxay tahay si walba oo dadka ay ku dhahaan labiskaaga ma qurxano mise saan shakligaaga ma qurxano in aadan warkooda qaadanin oo dadkaas sida shaydaankii oo kale aad ka cuudubilaysatid tan kale hooyadan maasha allah waa hooyo aad iyo aad u fiican hooyooyin badanna inay ku daysan doonaan aan rajeynaya gabadhan markii ay tiri aniga haddii aadan i xamili karin ama yacni aad dhibsanaysin labiskeyga iyo habkaa u noolahay iska kee fasaxa oo keligee ayaa noolaanaya ayay tiri laakiinse hooyadeed gabadhi ma aysan deynin oo waxay tiri maya hooyo iska joog waad soo hanuuni doontaa gabadheedana ma ka rajo dhigan habeen iyo maalinna ilaah subxaana watacaala ayay u bari jirtay ugu dambeynna waatan gabadheedii usoo laabatay shayaadiintii dadka yacni shaydaanul insi iyo shaydaan caadi ay kala yihiin uu ilaah uga soo badbaadiyey gabadheedii ay usoo noqotay diinkeedii iyo tarbiyadeedii iyo aadaabteedii iyo dharkeedii intaba usoo laabatay marka waxaa fiican ilmaha haddii xitaa aa aragtid inay xun yihiin inaa adigana aa kusii adkeenin oo aa ku qaylinin oo duurka hore aa usii gelin sida hooyadan oo kale aa ka dhigatiin ilmihiina marka qisadan waa qiso aad iyo aad u cajiiba gabadhanna waxaa la tusa haddii ay saas ay ku geeriyoon lahayd in ilaahi subxaana watacaala cadaabtiisa ay arki lahayd maxaa yeelay diinkeedii ay dayacday ilaan qofka haddiiba diin oo haysanin ma sheegi karo su-aalaha markaas la weydiinayo maskaxdeeda meel kale ayay ku xawilneyd xilligaas marka xumaan walba aa ku jirtid inaad kasoo laabatid way fiican tahay inta aa waqtiga yarka aa haysatid ee nafta ay kugu jirto walaalahay qaaligaa qisada haddii aa ka hesheen sii sheergareeya asxaabtiina iyo dad badan si markaas ay uga faa'iidaystaan ayna yacni wax ugu noqoto ay kusoo hanuunaan inta yacni dhunsan inta hanuunsanna iimaankooda uu kusii adkaado hooyooyinkii ilmahooda dhibaatada isugu qabane ee ugu noqoto wax ay ku cibro qaataan oo ay ku dayadaan asxaabtiina marka la sheergareeya muuqaalkana like noo saar haddaan ugu cusub tahayna subscribe wixii aa qisadan ka aragteen iyo sidaa u aragteenna qaybta commentiga ah noogu reeba intaa videoga mid lamida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu